waxa mahad iska leh dhammaan in allaala iyo intii ka qayb qaadatay halgankii iyo la dagaalankii nimanka qawaarijta runtii wiilasha Soomaaliyeed ee qiimaha badan halkan fadhiya ee ku abtirsada ciidanka dib u xuraynta deegaanka waxaan rabaa inaan idinka had celiyo dhammaan halgankii aad soo gasheen dadaalkii iyo waqtigii aad soo bixiseen dhiiggii iyo dhididkii aad soo bixiseen oo aad ku raadinayseen xurriyadda Soomaaliyeed oo aad ku raadinayseen badbaadinta nafta iyo maalka dadka Soomaaliyeed oo aad ku raadinayseen ilaalinta sharafka iyo karaamada muwaadiniinta Soomaaliyeed oo aad ku raadinayseen badqabka naftiin waxaan ognahay nimanka qawaarijta argagixisada muddadii 15 sano aheeday ee ay dadka Soomaaliyeed dul saarnaayeen dhibaatada iyo tacadiyada iyo gumaadka ay dadka Soomaaliyeed u geysteen waxaad ogtihiin wax dheefkii dadka meesha ay ka bixiyeen iyo sida ay ula dhaqmeen waxaad ogtihiin diintii islaamka meesha ay dhigeen iyo sida ay ula tacaamuleen dadkii ahlu diinka ahay oo dadka Soomaaliyeed oo miiga iyo magaalada gaarsiin jiray ficilada ay kula dhaqmeen iyo meesha ay ka rideen midka ugu yar iyo dhibaatada ugu yar ee ay gaarsiiyeen waxay ahayd inay masaafuriyeen oo ay ka masaafuriyeen diinka Ilaahay oo ay faafinayeen waxaan ognahay magaalooyinka waaweyn tuulooyinka iyo xitaa baadiyaha dhulka ee hawdka ah dugsiyo quraan ayaa ka oodnaa nimanka argagixisada ah intaysan iman qofka Soomaaliga waxa ugu horeeya ay ficilka ugu horeeya ku dhaqmo waxay aheeday cunugu markuu ba gaaro quraanka inuu muxuu ahay dugsiga la geey karo inuu kaxeeyo horta lambar 1 oo dugsiga geey xitaa hadduu baahi kasta u qabo si uu quraanka u barto 15 sano ee nimanka argagixisada ah ay joogeen Ilaahay baan idinku dhaariye xagay ku dambeeyeen macallimiinta dugsiyada xagay ku dambeeyeen dadkii culumaa u diinka ahaa oo magaalooyinka waaweyn cilmiga ka faafi jira xagay ku dambeeyeen meel ay ku dambeeyeen yaqaan maalin dhaweedo waxaan tagnay ceel dheere waxa meesha isugu keenay saaxiibadeena reer Tardoor rag kamid ahayo meesha joogay iyo rag reer ceel dheere aha reer Tardood wadaad ahay ayaa gacanta taagay wuxuu yiri maalintii nimanka argagixisada ah noo imaanayeen Tardo 14 dugsiya noogu tiilay maantana hal xaba kama furno dugsiyadii 14 dugsi ee quraanka wax ku yaala ma laho diinta Ilaahay ma qola inkaaran oo un afka ka sheeganayso cunahooda aysan dhaafsanaynay ahaayeen mise qola diinta Ilaahay loo soo diro faafinaysay ahaayeen wala waxay ahaayeen diinta Ilaahay dabar goynaysa islaamka duulaan ku ah dadka Soomaaliyeedna duulaan ku ah jiritaanka dadka Soomaaliyeedna dabar goynayso baabi'inaysa sharafka iyo karaamada muwaadiniintu ay leeyihiin ku xad gudbaysa ayay ahaayeen horta nimankaas qawaarijta dhinaca kale haddana imaw bal fiiri Ilaahay baan kugu dhaariyay bini aadnimadii haddana xagay aad islaamnimada horta meeshaas ay dhigaan waa ka tageen halkaas ayay dhigeen bini aadnimadii haddana xagay aaday wuxuu u imaanayaa qof muslim oo Soomaaliya oo meel degan ama miig ama magaalo oo laga yaabo xalay sidii ay ku hoyatay in Ilaahay og yahay oo laga yaabo quraacdo caruurtiisa siilahay ama qadadu siilahay inaanu meel ku ogeyn oo ay ka xigto xoogiisa inuu baxo oo soo shaqeeyo wuxuu leeyahay $100 kugu ganax war Ilaahay baan kugu dhaariyay xagow ka keena qofkan xagee ka Kenya waa labo ama xirnaa ama lacagta keen ma haysata ma awoodi kartaa ma ku qabataa ma jirto laakiin mar haday diinta Ilaahayba ay ka been sheegayaan horta wax kale maxay yihiin taasaba quus haday adiga haday suulinayaan oo dugsiyada quraanka xireen oo macallimiinta dugsiyada masaafuriyaan oo dadkii culumada ahaa ee cilmiga faafinayay ay xireen ee ay deegaanada ka masaafuriyeen kuwana ay iyo masaajida ugu galeen ay ku dileen ay dhigooda ku baneestaan horta wax kale xagee yaaliin waa u dhamaatay waxa ka sii xun dhaqan xumada kale iyo dullinimada kale ay umada kula dhaqmeen
فيري أصلا صعدوا كوي معنا ماله كي من متقاني دوحوا يهنا متقاني dadka Soomaaliyeed dhaxdoorana dhaqankooda marka lagu soo laabto waxaad ogtiin gabdhuhu xurmada ay ku leeyihiin iyo gabdhaheenu say noogu qiimaysan yihiin laakiin waxyaabaha ay sameeyaan dhaqanka ugu xun oo dhaqanka islaamka iyo diinta islaamka ba ka fog iyo dhaqanka Soomaaliyeed ba ka fog aan idin sheega ayagu waxay keeneen islaamka jeclaaday amba rab amba harabin war adigu muslim nuucee ahaa tahay oo bini'aadmi nuucee ahaa tahay oo qof nuucee ahaa tahay adiga ma ila dhalay ma ada iskale ما ميانا أنا عرور تيد أيسان هين أبو ولا شيء أيسان هين أو أنا قاعد كذا أنا أقول هين أنت تكتب من هذا حتى إسلام كاج على هذا فيري إلهي بان إذن كودارية نقن كنا ماشى صيدك وحيكون حد قدبان مركز دينتي إسلام أو علامة جدودة نوها وإحنا قدام بيا أيسان جري وحيكون حد قدبان بني آدم نمدي وحيكون حد قدبان نقن كي صوماليات وناك سنة waxay sameeyeen wax kasta ee ka xariman qofka muslimka amba qofka bini'aadmiga ay ku dhaqmeen waxaan nasiib darro aheeday annagoo arkayna inay nuuca u dhaqmayaan ee ay ku xadgudbeen sharafkeeni iyo karaamadeenni ee ay ku xadgudbeen nafteeni iyo maalkeeni ee ay baneesteen dhiigeeni horta muddada inta la eg inay dul saarnaadaan qalad aheed dugsiga koobaad markay xireen ee macallinka koobaad masaafuriyeen deegaan kasta oo Soomaaliyeed waxay yahay horta inay yiraahdaan war naga tag adiga wax fiican ba soo ma wadid diinka Ilaahay aad mas'uuliin oo saaxiin diinta aad sheeganayso waxyaaba cajiibkaan idin sheega marka waxaan tagnay meel hadda halka dhowr boqol kiiloomitir laga yaabo inay naga xigto oo ruunigood la dhaho oo degma doraad ma yahay shalay ma doraad ayaan joognay buuga marka meela ay meelihi ay umada ku baadi jireen buug laga soo qaaday buuga qaybtiisa kore waxa ku qoran diinta islaamka waa inaad adeegsataan diinta islaamka waa inaad ku dhaqantaan kuma qorno ogow ya waxaan idin kaga mahad celinayaa in aad iya garateen oo qaranka Soomaaliyeed iyo madaxda qaranka Soomaaliyeed baaqoodii ayideen oo ciidamadiina qaranka garab istaagteen aad go'aansateen dhiigiina iyo naftiina inaad u bixisaan xurriyadda dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed badbaadinta diinta islaamka because hadday cid in laga badbaadiyo ay aheeday nimanka qawaarijta ah oo dhinac aysan ahayn u adeegsanay in laga badbaadiyo aheed Soomaa because jeelkay qaldaayeen jeelka yar yar oo dambe qaldaayeen jeelka feere ayadu waa ayadi xadiisku waa xadiiski laakiin sida uu u isticmaalaya qaldan wuu akhrina qofkina wuxuu ugu fasiraa wixii ay sheegayso waxaan ahayn oo qofka ugu fasira qofkii cabaysan oo indhaha dhagaha ka xirna ku soo galay feere sida kuwa qaraxyada ay ku xireen war ilaahan idinku dhaariye feere hadda intaan dad saaxiiba oo walaala oo muslima oo Soomaali oo aad isu jecelaan Soomaha ninkee saaka iyo jinna helaan ninka kala siinay ya ma nugu jira hooyada iyo aabaha ku dhaleed aad laba jeer inaad fiirisaa laga yaabo jinnada haddaad hesho feere ilaahan idinku dhaariye haddii jinna la gala cali dheer iyo hebel diiriyama iyo isku soo xiraan bamka ayagu kow isqarxiyaan haddiiba jinna lagu galay ya jinna qof kale u gudbinay ya feere mo hebel diiriye iyo hebel kaba ku dukada midkaan la leeyahay shaydaankan meenta ku jira ruuxiisa iyo ku jiro wiraaha jinnada gal isqarxiya wuxuu ku Soomaaliyeed wax garabada oo waxay ku tusinaysaa qaacinimada iyo qiyaanada iyo munaafaqada ay nimankaas salka ku hayaan runtii nasiib darra ku dhacday waxaan leenahay marka kuwa in la qalqalda dabka lagu shubaayo ee dhibaatadu ku saxato qaranka Soomaaliyeed wax badan oo u baaqiyay maanta marka waxaan leenahay u baaqi mayno oo baaq hadda gaara iyo soo noqda dhihi mayno dantiina gartaan horta kuwaas leenahay meeshaan maanta u marsiina hadday dantooda gara waayaan kollay qolooyinkii meelahan dhixaan ku soo aragnay meeshay mareen bay marayaan ma meel kale marayaan kii toobad keena oo yira umadaydan u soo noqday dadkaygan ku hoos jira gacnahan taagay waa toobad keenay hadday yiraahiin alxamdulillah waa la soo dhaweynaa nidaamkii iyo systemkii dawladda ugu tala gashaana la marsiina ayagu waxay rabaan inay dhiigii muslimiinta daadiyaan bay
إلهي وقد بطق عندك فيري إني هرت دين تدولان كو هايتي والعلومات يدلين أو دتك مشاقد هايدلين أو معلمين تدكسية دي مسافوريين أو مساجد كي وحي كدغان meesha dadka muslimiinta ah maanta ugu cabsida badan yihiin oo ay leeyihiin ama waa lagu qarxina ama kii bistoolada lahaay kuugu soo galay ilaahay baan idin ku dhaariyo Soomaaliya waxa ka dhacay inay iyo masaajid ugu galaan culummo ama dad muslimiina oo kitaabka ilaahay akhrinaya saas u kala haaya ay iyo ku kordilaan kitaabka dhiigoori ku daato wa rabbi aan idin ku dhaariyo waa muslimiin nuucay ah waa dad nuucay ah muslim nuucay ah وروحان منافقين وفيري وحان هدان كفكرنا في علة أي سمينايين حتى ضميرته إنه نمسينا يسألن نمن كان منافقين ودول جريتانكا دتك الصوماليات إيه الدين تمسلم كالله صادريو وإلهي ددن أقولنيو وريلاهن كوجو دارش مسلم كتاب كلا هاي أقرنا هاي أيده القرآن كريمك إن الدنيا بيستولى لسودون استاكت البيت إلهي يكون أحد شو كتابكي ديجيسي ku daato madaxa dul dhigo inta ka keento waxaas waa diinte dadka muslimka ah ee Soomaaliyeed iyo diinta islaamka iyo akhlaaqiyadka bini'aadmiga iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimka cid in laga badbaadiyo haday tahay qawaaristan hawdka ku jiray tahay in laga badbaadiyo qof kasta ee ku baxa gacantoodana ilaahay baa diintiisa noogu sheegay ahlu janna inuu yahay كي كنا وعمن أجر يحسن إلهي كثيرا كي أي دلان أو أيوغو أي دلان إنه أهل الجنة يهي كي دلان إنه جنة كتجاي مركا هرت أيوغو جهادكم مجرانا أنا جهادكم جرنا أو أيوغا جنة كوجلينا وكرهت سنين أيوغا جنة كوجلينا هرت دين تو أمر نافسنا عنها سيدا أي بوجاك ترى كو قرانا هالكم كو أرجنا أو استعمال أهنا تاسع نبكة واستعماله يعني لكن وسولينينا وحيرا نوحري علين تجدها إن عنو حدي حتى نجو جيس باهيدا هي سواء عنينا وأنا دبص علينا حتى نصعد كجبنا كوا وكذا بجرجورنينا إسكندر وحلا جهاري كرماه وحلا جهاري كرماه ومنافقين كبفك شياطين دين إلهي دولان كوا هو إذن كإلهي كوا ححن كأه جدت كيقطع كله ما ليسنا كجرة dad kan afkaarta lagu qalda loo soo dhiibayna maalin ayadu waxaad arki doontaan ayadoo wajiyadooda ay wax aad u xun ka muuqdaan oo sharciga ay hor taagan yihiin ilaahay idankiis oo laga gudaayo ama lagu la xisaabtamaayo danuubtii dadka Soomaaliyeed ay ka galeen dhiigii dadka Soomaaliyeed ay daadiyeen sharafkii iyo karaamadii dadkan muslimiinta ee Soomaali ay lahayn ay ku xad gudbeen intaas waxaan ku xiraa nimankaas iyo halgankoor